idin quursan dalmar iyo nimcaan hilaac waxay idin leeyihiin qaali baa tihiine yaa la idin quursan maadaama aan ka warqabno ayaantan dambe in dumarkii dhibaatooyin badan lagu haayo ragnagu magaca oo diiday inay ragnimada lifti ka qaataan barkee nin naag xumee qiimayn iyo adoo heli kara qofku qaaliyeysta oo ku qadariyo ku qiirooda wadha ku horeyan ku qayaameen barteeda youtube-ka subscribe saara gambaleelka furas السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان أصحابتك وحنا برتي يوتيوب كمير الدنيا أتكجوكتان هذي مال إذا مان وناكسن هذي هبين إذا أنت هبين وناكسن واطع ما أنت واحد رياكشن كم بحنا يا هيس أي صو ولا قاعدين لما فنان أو مد صوماليات مع كله ده المريرة ينمعانه لا هيس مجا عيدا وحلي هذا أذوق خلنجاء محاكو غير يا أنا سلسل عنه qiimeyn iyo adoo heli kara qofku qaaliyeysta ay ku bilaabatay heesta inay gubaaba tahay anigu waxaan ku gartay intii ugu horeysay ee uu dalmar qaaday heestan waa hees gubaaba ah waxaana lagu gubaabinayaa dumarka Soomaaliyeed waxaana looga digayaa rag kayaasha mar walba dumarka yaga dabinka u dhiga kana oysiya ma sha Allah qadariyo ku qiirooda wadha ku horeyan ku qayaameen qudha ku hura oo aan ku qiyaameen adoo heli kara mid qudha naftiisa ku huri kara oo aan marnaba ku qiyaameen maxaa ku geenaya dib jir ka oysiinaya fiidiyoo inta ka soo duuba baraha bulshada ku faafinaya ku ceebeysanaya maxaa ku geenaya qiimayn iyo adoo heli kara qofku qaaliyeysta oo ku qadariyo ku qiirooda wadha ku horeyan ku qayaameen qaladkaaga uroon kugu qaylayn caskuna qaladkaaga uroon kugu qaylayn أنا مركز قلت كجشو بدن كعنانين وسكوكا جفورين أبايو ها عسكونا غدوك وقلما وصيامها ينقبويني كورسي يو أنا لهين قبويني معناها أن كويسين أما إسكالكا وينين ورفدين ورشنا كوقينا قلت كادورون كوقيلي عسكونا غدوك وقلما وصيامها ينقبويني quruxdii noloshana ku qira maxaa ku qayray quruxdaana maxaa ku qaribay maxaa ku qafiifiyo ku qufulay imaan ku qadari maxaa kugu qoray qalibaati lagu qursan adoo kharaja maxaa ku qayray quruxdaana maxaa ku qaribay ku qafiifiyo ku qufulay limaan ku qadari maxaa kugu qoray qalibaati yan lagu qursan intaas waa kooraska heesta waa farxadaadii qof aan ogeyn murugtaad ku sugan tahay qof aan marnaba adiga farxadaadan ogeyn macnaha
murugtaad ku sugan tahay kula qaybso walwalkaaga qorshihiisu ahaa xubnahaaga aan kula qaybsan walwalkaaga qorshihiisu ahay xibnahaaga waa sax waxa uu leeyahay Nimcaan qof aan farxadaada ogeyn oo aan murugo kula qaybsanayn oo dhibaatadaada aan barrabinba inuu maaragtay ku caawiyo ama murugta kula qaybsado qorshihiisuna yahay xibnahaaga macnaha jirkaaga markaad laalayso qurxoon tahay shidan tahay ku raba markay xaaladdu kugu xun tahay dee jidkaas kaaga dhaqaaqayo waaye fahmayaa gabdho adinkaa lidin qaadaya farxadaadii qof aan ku ogeyn murugtaad ku sugan tahay kula qaybso walwalkaaga qorshihiisu ahaa xubnahaaga qosol baad ku kabtaa fikirkaaga adoo niyadda iyo uurka ka xun baad qosol ku kabaysaa markay xaaladaha noocaas oo kale ah ku sugan tahay noloshiisa isagoon quuraansan dhibkaaga qaybkaaba maxaa kaa reebay qosol baad ku kabtaa fikirkaaga maxaad ku qabtaa noloshiisa isagoon qosol baad ku kabtaa fikirkaaga bal maxaad ku qabtaa noloshiisa dhibka ku haysta adiga markaad qosol ku dabarayso maxaad ku qabi kartaa qofkaas asaga ah noloshiisa isagoon quuransan dhibkaaga khayrkaa bal maxaa kaa reebay ha qof noocaasoo kale ah ilaahay naguma keenee noloshiisa maxaa lagu qabi karaa oo aan murugo ahayn heestan waa hees aada u wanaagsan labadan nin waxay u qaadeen gabdhaha maalin walba laga oysiinayo mar walba la fadeexeysanayo dhibaatada loo geysanayo waa hees dumarka Soomaaliyeed lagu goobaabinayo inay ka fogaadaan kuwa khatarta ku ah ayaga adoo qaranca maxaa ku qayray quruxdaada maxaa ku qarribay maxaa ku qafiifiyo ku qufulay nimaan ku qadarin maxaa kugu qoray qaalibaatiyaan lagu quursan gabdhow qaali baa tihiine yaan la idin quursan dalmar iyo Nimcaan Hilaac waxay idin leeyihiin qaali baa tihiine yaan la idin quursan adoo qalanca maxaa ku qayray quruxdaada maxaa ku qarribay maxaa ku qafiifiyo ku qufulay nimaan ku qadarin maxaa kugu qoray qaalibaatiyaan lagu quursan qaali baa tihiine yaan la idin quursan waa hees aad iyo aad u wanaagsan labada nin ee dalmaryare iyo Nimcaan Hilaac ah hees wanaagsan ay u soo qaadeen dumarka Soomaaliyeed oo gubaaba ah waxaan rajeynayaa dumarka Soomaaliyeed kuwa hadda i daawanaya in heestan ay wax badan ka baro doonaan af suugaaneed bay idinkula hadleen fanaaniinta waxaa wanaagsan mar walba kuwa ka diga khatarta soo socota fanaan sidiisaba waa codkii shacabkiisa haddii uu ku arko waxyaabo dhib ku ah waa inuu hees ka soo saaraa labadan marka waxay ku amaanan yihiin heestan ay dumarka ku gubaabinayaan maadaama aan ka warqabno ayaantan dambe in dumarkii dhibaatooyin badan lagu haayo rag nagu magaca oo diiday inay ragnimada lifta ka qaataan barkeen nin naag xumee haayo nin maahane waa diideen annagay nagu magac yihiin gabdhihii saas ugu doomeereysanayaan
marka waxaan idiin sheegayaa gabdhow allaha idinka dhigo kuwii heestan wax ku fahma وأيوب كارلوس إذا نقول استمر بدون أتكتبتان دي إتا مركو جوري أصوب قط برتي يوتيوب كسبسكرايب سعر جنب بالك فرصة هذه لسه تعتمر بهدات هري اللي جوك تكون مع سنتا داوش المقال كان فضلا المقال كان لايك جري سيد بدن وجارو إسرقت الدم بوحي صله قول استا